كمنا كم تاgeeraasha xisbi xaakanka talada dalka haya kulmiye oo saaka ka soo qulqulay wadooyinka degmada garadag oo ka soo kala dareeray xafiisyada ay ku leeyihiin degmada garadag isla markaana isku soo biyashubtay wadada halbowra waa degmada garadag oo socod luga ku maray wadadaasi isla markaana isku soo biyashubtay geedka nabadda ay ku caankatay degmada garadag iyagoo taageerayaasha tirada badan ay ruuxayeen calanka astaanta oo xisbigaasi isla markaana ku dhawaaqayay erayay halku dhigiyo ay dhamaanayeen xisbigaasi iyagoo sitay boorada ay ku xadhayeen musharaxa madaxweynaha xisbigaasi iyo musharaxa madaxweyne ku xigeen iyo bitay taageeraashan gaadiid tira badan markaana aad moodin inay taageeraasha xisbi xaakanka talada dalka haya kulmiye ay saaka u qoskulayeen taageeraasha dhigooda ay xisbiyada kale ay markay isku soo biyashteen geedka nabadda ay ku caankatay degmada garadag waxa qudbada wax ku ugu soo jiriyay dhammaan mas'uuliyiinta heer degmada xisbi xaakanka talada dalka haya kulmiye cuqaal waayeel iyo wax garad sidoo kale waxa ka hadlay maxamuud saalax cabdi oo ka tirsan gudida kaambeeyga gobolka Sanyare isla markaana gudoomiyaha gudida kaambeeyga degmada garadag dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye iyadoo maalinteennii saddexaad ee xisbiga kulmiye aynu horadaha u ahayn inoo asteeyey guddiga doorashooyinka jamhuuriyadda somalilan ayaa maalinteennii saddexaad gashay waxaan aad iyo aad idinka hambalyaynaya sida quruxda iyo qiimaha leh uga soo qayb gasheen kuna soo abaabusheen ay dhammaan isku soo baxeen iyo kale ayay tartan naga dhexeeya waynu xoog sheeganay wayna muuqataa awooda ku socota ku gaarsiiya 13 November ilaa cod ku dhacana saasay u taagnaanayna mustaqbalkiina waxaan u garanay xisbiga kulmiye inaad taageertaan waxaynu ku filan barnaamij siyaasadeedka xisbiga qaad kuma jiro annagu qaadin bala qaadimay mustaqbal baan idin ballan qaadaynaa ardayga jaamacad baan u ballan qaadaynaa agoonta guri baan u ballan qaadaynaa ومدر سري وبعد قرق جمهورية سوماليلاند garadag